war-saxaafadeedkan saaka lagu qabanayo degmada Xudun ee cuqaashi iyo waxgaradkii iyo culimadiiba ka soo qayb galeen iyo dhalinyaradii waxaan rabnaa inaanu ku muujino kacdoonka siyaasadeed ee ka jira Puntland magaalada Garowe kacdoonkaas waananu filayn oo nagu ah wax cusub oo aan hore u tiri jirin kacdoonkaas waanu bedelkiisa ka eegaynay waxa wax ka duwan waxaanu filaynay wax weyn oo aad u culus oo lumay waanu muddo fara badan raadinaynay in dib loo helo ma dhicin waxaanu filaynay abaalgud gaar ah in la siiyo ma helin bal waxa ka muuqday maamulkii isqabsiga foosha xun ee maanta Garowe ka taagan waxa kaloo aan rabaa inaan u sheego intay dhageysanaysaa khusuusan arrimahaas reer SSC waxay la tusay ama loo muujiyay oo maamuladu u muujiyaan shacabku kuma jiro madax dhaqameedku kuma jiraan waxaa la muujiyay waxay ku quustaan oo ku tagaan waxaan leeyahay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen mas'uuliyaddiinu yay noqon isla weyni iyo isu toox iyo xari kala jiidasho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxaan leeyahay sharcigu haydi kala hago oo u hoggaansama oo aqbala hadaycina sharciga ku dhaarateen waxaan ka bilaabaya oo toos soo kooban aan uga hadlaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka kelmad baan leeyahay kama badna madaxweynaha waxaan leeyahay hashaad geela ku maalaysid neefka haddaad naas uga diidid afartaba waa kuu diida isaga intaasaan leeyahay axmedna waxaan leeyahay awrka weyn oo reer ku rarto dhibta aad uga tudhid kaagama tudho xasan waalka oo reer ku rarto dhibta isaga uga tudhid kaagama tudho axmedna intaasaan ku dhaafay baarlamaanka waxaan leeyahay dee waa taahir waxaad meesha u fadhidaan waa la ogyahay waxaa geela loogu heesaa indhayarolow kii soo ammaanay in la lacay mood waa se la ogyahay idina intaasaan idin leeyahay waxaan leeyahay Puntland ta weyno ama harti ha ahaato ama cid kale ha la wadaagtee ama daarood baa la wadaagee waad u jeedaan meesha wax xarqalaynayaan sabaynayaan nin walba xil baa ka saaran hadduu dhaqan yahay hadduu siyaasid yahay hadduu guurtu yahay hadduu shiikh yahay meesha wax marayaan waa u jeeda waxaan jeclaan lahay oo ku hadlayna haddaanu reer Xudun nahay arrintaa in daaro soo farageliyo inuu arrintaas si ay tahay wax uga qabto intaa ka bacdi war-saxaafadeedkaygan wuxuu ku saabsan yahay qayladhaan mar walba nagaga imanaysa Puntland oo dhegi ka naxday oo aanan jeclaysan oo aanan ku farxin oo ah mar walba waxaa haysta madaxweynihii iyo madaxweyne ku xigeenkii aad iyo aad baanu arrinkaa uga soo horjeednaa waxaan u malaynayaa dadka waxa kala haga dowladnimadu waa wada tashi wax wada ilaashi wax wada yeelasho wax wada qaybsi
maaha gacantaa ku galoorsi nin waliba uu kadi yaro uu xeraysto maaha waxaan malaya puntland dee distoor waxaa dadka kala hago oo dadka u dhexdhexaada iyo madaxda maamulka waa distoor guud ahaanna shirkan waa shir laga ogyahay SSC oo dhan waa shir bilow ah shirar badan oo ka dambeeyana way dhacayaan tanna waxaanu ku muujinaynaa dareenkaygaanu ku muujinaynaa oo cod ah waxaanu isimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka puntland u sheegaynaa inuu maxay hayto Siciid Cabdullaahi Deni uu puntland hoos u eego ummadda shacabka puntland waan salaamayaa dhibidii ma haysano idinna duri mayno laakiin waxaan soconayaa aragtaan ku socda beelaha idinle deegaanka idinle leh xaq idinle leh awood qaybsigii puntland maanta iyo maalinta dad baan urinoo arag xeelka gudaha marka la eego saynu kala nahay taa u dambeysay shaalkaanu ka joogno waa ka warhaysaan waxaan leeyahay talow daacadnimada la ogaado puntlandna cidina male waa la wadaleeyaa boqol baan jiri boqol gugaan maanta abaa igu dhan puntland daaroodoo dhan baa dhistay 4 nin baa labana keentay labada garab qabatay puntland waxaan waa la wada dhistay shooran baa lagu galay tustoor baa la qoray tustoorka la qoray labada gobol waa kala madax bannaanaayeen gobol puntland baana labadaba lahayd sool iyo sanaag iyo cayn iyo boosaaso iyo guriga la yidhaaho gaalkacyo inta ka dhexaysa ilaa ogaadeyniyaba 4 nin baa keenay puntland magaceeda markii hore 2 keenay markii xigeenna 2 la qabtay islaan maxamed iyo garad salawaan bay ahaayeen gobolladii puntland qaar waa maqan yihiin sool iyo sanaag iyo cayn maanta in la soo celiyo baanu sugaynay ma hayno soomaalina dowladda dhexe shooran 4.5 baa wax lagu qaybsaday puntland qudheedu sidoo kale weeyaanu hartigu waa qaybsaday daaroodku waa qaybsaday ninkii jiray cun waadaa xigta taasi waa qodob taasina waa daliil ta puntland baa timi puntland dee way naga dhexaysaa puntland nin waliba qor buu ku leeyahay oo daarooda qaybtiisa ninkii dayacaa ee hadhaa isagaa iska reebay salaanka bacdi shirkan aan ku qabannay degmada xudun hadalka intiisii nuxurka lahayd odayadii hore baa dhameeyey laakiin waxaan taabanayaa puntland dad baa wada dhistay dadkaa wada dhistayna sharci buu ku dhistay wax qayb buu ku dhistay sharcigii iyo wax qaybtii uu ku dhistay ciddii dambi la timaadaa waa meesheeda